wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqda aadanaha safiir ku-xigeenka safaaradda wadanka walaalahana boqortooyada Sacuudi Carabiya safiirka ururka iskaashiga islaamka mas'uuliyiinta halkan fadhiso oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib maanta halkan waxaan u joognaa airport aadan cabdulle international airport waxaan u joognaa inaan suguutino mataano Soomaaliyeed maaragtay laba gabdhood oo Soomaali ah oo hooyo aabo Soomaali ay dhaleen oo dhashay ayagoo isku dhagan oo walaalahan boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ugu deeqeen in la qaado dalka boqortooyada loo qaado oo halkaasi maaragtay lagu soo kala saaro loo qaadayo suguutintooda ayaan halkan u joognaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inay ka faa'iideysan doonaan fursadaas oo ayagoo caafimaad qabo oo kala soocan ay noo soo laaban doonaan ayaan rajaynaynaa waalidkood iyo Soomaalida oo dhanna ay ku farxi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaan ugu mahadcelinaynaa garab istaaga dadka Soomaaliyeed ay garab istaagan tahay mar walba barnaamijka mataanaha oo ay khibrad dheer u leedahay boqortooyada Sacuudi Carabiya inay kala saarto mataanaha isku dhagan waxay ahayd markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay ka faa'iideysato fursadaas ma aha waa fursad ay adduunka oo dhan ay ugu faa'iideeyaan Soomaalina ay hore ugu faa'iideysatay mataano Soomaaliyeed isku dhagan hore loo kala saaray markana waxaan rajaynayaa inay tahay aan filayaa markii labaad inay tahay oo mataano Soomaaliyeed isku dhagan ay ka faa'iideystaan si guul ah inay ku soo dhamaato ayaan Ilaahay ka baryaynaa waan u ducaynaynaa walaalahan boqortooyada Sacuudi Carabiya way ku mahadsan yihiin garab istaaga bini aadannimo ay dadkeena iyo dalkeena la garab taagan yihiin waan ugu mahadcelinaynaa iyo hay'adaha kale iskaashiga la leh sida maaragtay King Salman oo garabka bini aadannimo ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ah iyo sidoo kale ururka iskaashiga oo halkan nagala joogo ayagana la shaqeeyo King Salman la shaqeeya waan u mahadcelinaynaa dadaalka ay wadaan dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa ilaa hadda gacanta ku hayay oo u report gareynay maaragtay oo la xiriiray wasaaraddan way ka war haysay oo maaragtay waraaqaha iyo maaragtay codsiyada barnaamijkaasi annaga ayaa qoraynay marka meel fiican ay hadda maanta soo gaartay dadaaladaas oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waalidiinta ay wadeen wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya ay garab istaagtay maanta waxaan soo gaarnay gabagabadii in la qaadayo ayaan soo gaarnay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala Ilaahay guul inuu ku soo dhameyn doono aad baa u mahadsantihiin